بعد الصحافة وما تنتهين وكعذر دارنا إن ليدين داهية waxaa la socoteen gudoomiyaha inuu dhowr jeer shalay warbixin ka bixiyay safarkeenii ku wajahnaa Kismaayo iyo sida wax u dhaceen arintaas sidoo gudoomiyaha uu sheegay aad iyo aad uga xunnahay dalkan annaga waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goobta uu doono marka waxaan u aragnaana nasiib darro in dawlad sharci lagu doortay iyada sharciga ay jibiso marka taas waxaan rabaa sidaas way positionkeena waxba iskama bedelin waxaan u arkaynaa tacaddi iyo jibin la jibiyay dastuurka oo dawladdu si bareera oo ula kaca u sameysay xaqna aysan u lahayn intaas marka halkaas rabaa inaan ugu gudbo waxaan rabaa wax yar dib aan kugu celiyo Soomaalinimada iyo dawladnimada Soomaalida iyo meesha ay ka timiday waxa ogtiin annaga 60kii xorriyadda qaadanay dawladda la soo dhisay dawladna waxa lagu dhisaa constitution sharciga lagu dhisaa si hay'adaheeda ay u wada shaqay karaan si dadka ay meelayaan ay ugu adeegi karaan dawladda koowaad la soo dhisay ahaday dawladda aadan cadde Cabdirashiid ku xigay walid lawna xariisto dawladda Maxamed Siyaad Barra ku xigtay waxay ahayd dawlad military 22 sano waxaan soo galnay waqti fawda laga soo bilaabo 19 ilaa 20 isku dayo badan la sameeyay dawladda caalamiga la soo dhisay wax badan la isku dayay laakiin ma shaqeynay dawladnimada hadda socota taariikhdooda waxay ka soo bilaabanaysaa 2000 macnaha waxaan u wadaa nidaamka hadda socda nidaamkaas waxa lagu soo dhisay wax la yiraahdo 4.5 oo macnaheedu uu yahay dadku inay wax u qaybsadaan qabiil laakiin ujeedada ugu weyn waxay ahayd dadku inay u gudbaan aragti siyaasadeed iyo dawlad madaniya oo u adeegta bulshada Soomaaliyeed wali arintaas waxa loogu jiraa baadi goob meesha la soo gaaray marka 20kii laga soo bilaabo 2020kii iyo xilligan 2019 يعني أنت مدحوينه السبب الدشي هي أنت بروساس للصامر هذا وقتي إلهكم هالسن تاريخ داس قيبان كأها يعني جا يضد بدن وكمدا وجدد أقوى وحال سارة دتك الصومال ده هلانو نظام يجوا الدورتين دولة يجوا إليهين وهو ذيك تيجا وحال سعوتين وحال سمينا أي تنازلات فرا بدن وحال لو سمينا أي waxay ahayd danaha ummadda Soomaaliyeed in la xaqiijiyo in qof walba Soomaali oo dareemi karo sharafta dawladnimadiisa oo ku sharfanaado ama mas'uul ahaado ama qof caadi ah ahaado ahwaal xaqiijiyay waxna waa dhiman yihiin marxaladda hadda la joogo waa marxalad aan rabno dalku inuu aado axzaab siyaasadeed laga gudbo 4.5 dadku ay ahaadaan dad afkaar siyaasadeed ku midoobay يعني سوق حرين ديجان أي قبيل أي كتر تمان أفكار سياسية سي أي عطك أي ربان أهلان كدبنا اللقى السجايو وحي بلن قادم إنه فليان دولة عن هذا الجرتا كما دحين عبد الله فرماج أوه جاميو وحوح لو قولي بيدورشو وحوح لو قولي بي دستور وح أو فراي مدحين حس شقا كوري asagoo awoodi haysta oo ciidamada xukuma oo imkaaniyaadkii oo dhan haysta waxa ogolaaday inuu yiraahdo waa la iga guuleystay waxaan u tanaasulay codka baarlamaanka taas maxaa baysu dastuurka waxa uu nafarayaa 4 sanaba in la helo oo la qaban qaabiyo doorasho cid ku guuleystay xilka lagu wareejiyo lana shaqeeyo la caawiyo inta karaan madaxweyne xasan sheekh waxa ka horeysay dawladdeedii oo runtii nasiib u yeelatay inay dhowr iyo 40 sano kadib doorasho halkan ku qabato sidoo kale أنا أودي كرا إن عن طريق بدن مرة ولا يجوا ليستي ما دحين حس شغان كوريجي
waayo waxaasoo dhan ay u dhacayaan su-aasha muhiimka taas waa haddii madaxweyne farmaajo oo madaxnimada jecel yahay xasan sheekh waa jecel yahay aniga waa jecelahay kuwa kale waa jecel yihiin laakiin ujeeddadu waxa waaye in la ilaaliyo sharciga iyo dastuurka haddaa meeshaas xoogaa yara kaftan geliyo aniga waxaan ahay nin jabhada oo wadaada oo xaalkiisa og tihiin marka waa laiga filinaya inaan xukunka ku dhigo marka aan doorashada samaynayana talooyin badan waxay isoo gaarayaan war waxaan dib isaga reexe baashaan hore u soco waxaan dhahay maya ma samaynayo laakiin shayga qariibkaa waxa waaye ruux maraykan ka yimiday ruux ka yimiday yurub oo leh 30 sano soo joogay inuu maalin walba sharciga garab maro arrintaas arrin la aqbali kara ma aha ninkii iska fadhiyey ama ilmihiisa u shaqaysanayay dal nabada ee marka dalka la isku hagaajiyey la yidhi ku soo dhowo waa lagu doortay ee garbaha laga istaagay maanta lagama aqbalayo inuu yidhahdo garoonka kama bixi karto waxaan rabaa warkayga inuu caddaado ani garoonka waa laiga reebi karaa laakiin hal shay laiga reebi karaa waxaa laiga reebaa sharciga ayaa ogol inaan Kismaayo aado sharciga ayaa ogol inaan Puntland aado sharciga ayaa ogol inaan aado meel kasta oo Soomaaliya waxaan rabaa aan u socdo qaraabo salaan aan u socdo siyaasad aan u socdo islaan ari raacaysa hadday wacdo tira iyo madan ku qanco inaan u tagi karaa rabaani waxaan rabaa xuquuqdaas qof kasta oo Soomaali inuu lahaa karo dawladda 24 saac oo la soo dhaafay waxaan ka sugaynay inay ka garaabaan khaladkooda maxaa yeelay khaladka aniga la iga galay waa khalad qof kasta oo muwaadin oo Soomaali laga galay waxaan aad iyo aad uga xumahay cambaareyna go'aanka saaka la soo saaray oo reer Jubbaland lagu cunaqabatay waa dad Soomaaliyeed xaqay u leeyihiin inay xilligoona doonaan safraan xilligay doonaan ay ka safraan Muqdisho xilligay doonaan ay u soo safraan mataqaanaa Muqdisho yimaadaan loo tago marka waxaan leenahay waa sharci darro marraba aniga arrimaha doorashooyinka madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Farmaajo isku hayeen aad u dhex galo laakiin hal shay aan rabaa inaan idin sheego Jubbaland marka doorashada laga sameeyay aan dhaho Puntland marka doorashada laga sameeyay doorashada yaa qaban qaabiyay dawladda dhexe ma qaban qaabisay mise reer Puntland qaban qaabiyay ya iga jawaabi kara Puntland maxay ku kala duwan yihiin Puntland iyo Jubbaland bal ii sheega labadooda sharciga u ogolaanaya inay doorasho qaban qaabiyaan doorashada say u dhacday waa laga hadli karaa laakiin labada maamul laba doorasho qaban qaabiyeen mid madaxweynuhu waa ka qayb galay waa tii Puntland midna waa diiday su'aasha labaad waxa waaye xataa haddii dawladdu ay madmadow ka qabto habka ugu habboon oo loo xalli kara ma yahay habkan maxaa ka soo bixi kara tilaabaha khaldan oo dawladdu ay qaadayso waxaan rabaa marka inaan u laabto dawladda waxaa laga rabaa sharciga inay ixtiraamto cidda koobaad oo sharciga lagula xisaabtamaayo muwaadinka ma aha waa dawladda sharciga lagu doorto hadday ixtiraami weyso macnaheeda waxa waa dawlad ma jirto inta jeer dawladdu ay garab martay sharcigana xisaab ma laha haddaa fiirisid mu'assasaadka dawladda ama institutionada dawladda ama hay-adaha dawladda ma qabtaan wixii loogu talagalay waxaan ka bilaabaynaa baarlamaanka maanta awood ma uu leeyahay su-aashaas adinka idin weydiinaa Soomaaliya inuu intuu fariisto si dimuqraadi u shiro u doodo oo waxa ay la taas soo saar awood ma uu leeyahay maya sax waay okay waxaan rabnaa inaan sheegno maxaa caddayn arrintaas sheegaya waxa caddaynaya gudoomiye Jawaari iyo dawladdu waa isqabteen in baarlamaanka la kontrolo darteeda Jawaari loo rido saas ma ogteen mise uma ogidina haddana dawladda joogta ama baarlamaanka jooga looma ogola inay shiraan oo qaraaraad qaataan dawladda waa dawladdii aan ka sugaynay inay noo qaban qaabiso doorashooyinka soo socda haddaysan ogolaa karin in Kismaayo la aado oo ama xaflad laga qayb galo ama loo safro aysan awood u lahayn inay safarkaas la timaado maxay awood u leedahay dawladdan see loogu aamini karaa mustaqbalka soo socda dastuurkii la rabo inay dhamaystiraan ma dhamaystirin hanaankii doorashooyinka meel u socda lama yaqaano amnigii
amnigii maanta magaalada muqdisho waa ogtihiin iyo dalkoo dhan meesha uu joogo shalay waxaan haynaa xog ciidamada qaranka ka mid ah in shabaab ay soo weerareen oo ay baabi'iyeen wax ka hadlaa miyaa aragteen dowladda waxaa laga raba inay ka shaqayso waxay ahaayeen dastuurka inay ilaaliso nidaamka geedi socodka dowladnimadana ay hogaamiso ayadoo raacaysa sharciga waxaa laga rabay amniga inay sugto aniga waxaan aaminsanahay waa ku fashilanta waxaan u laabanaynaa dhaqaalaha maanta dalka waa aragteen meesha uu maraayo magaalada o dhan waa kala xiran tahay amni ma aha ganacsi xurana ma jiro soo dadkan yay u adeegayaan aan isweydiino cidday u adeegaan yaa waay shaabax kama qabtaan waxay maalin walba daba socdaan siyaasi war adiga siyaasiyaa tahay sharcigaa ku ogolaatay aan hogaamiso kan isla sharcigaasaa wuxuu u ogol yahay inuu mucaarad ahaado agtaada xisbi ku dhisto haddaadan intaas fahmi karin waa khaldan tahay waxaa la socotiin siyaasiyiinta ama axsaab ha noqdaano ama ha noqdaano madax maamul goboleed dhibaatooyinka dowladda ay ku hayso maamul goboleed maanta dowladda xiriir la leh oo xura ma jiro soo beentay bal carku waa kaasi sheega maamul goboleed xur ah oo go-aankiisa qaada kara oo dadkiisa matela oo qanacsan oo dowladda ay wada shaqeeyaan ma jiro jubbaland isma hayaan puntlandna isma hayaan galmudugna waxa ka socdaa waad ognahay hirshabeelle waxa ka socdaa waa ognahay baa iyo bokool wixii ka dhaca waa ognahay marka yaa loo shaqeynaya dowladdan yaa u shaqeynaysa waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo aniga waxaan ahaa qofka ugu badan oo lagu tuhmo dowladda inuu u jilcan yahay inuu u dhow yahay mararka qaar la yidhaha xataa heshiisaa dhex maray ma aha sidaas aniga dowladda waxaan uga aamusnaay turid aan u turaaya maxaa yeele waqti a iga soo galay saaxiibo qaali aan ku waayey kuwa ku dhaawacmay kuwa xoolahooda ku waayey yacni inay degdeg ama si khalada wax u halaabaan ma rabo marka aniga waxaan ku jira dadka dhahaya dowladda 4 sano loo dhaafo okay 4 sano loo dhaafo haddaysan ba ogolaa karin waxyaabaha xorriyaadka asaasiga ah oo dadku ay leeyihiin doorasho annaga iyaga aan wada gelayno soo wada geli karnaa bal ii sheega garoonka magaalada muqdisho waxaan u malaynaa dhowr iyo 10 sano inuu xiraa markii maxkamaduhu furayeen sax wala la 15 sano dowladdii ku meel gaarkaada aan hogaaminayay waxay ku guuleystay ugu yaraan terminaalka inuu noqdo meel laga soo degi karo garoonka intaas iga soo gashay haddii aniga la ogolaa waayo cid loo ogolaa kara bal ii sheega waa su'aal oo maxaan u socdaa aniga waxaan u socdaa Kismaayo dowladda waxay yeelan kartaa inay tiraahdo waxaasaan ka qabnaa annaga raali naga ahaaw waxaasa sameeyna waxaan rabaa nuqdo muhiim ah inaan u gudbo ma ogtihiin horta dowladda iyo aniga sharciga inaan u simanna waxaan u wadaa dowladda iyo muwaadiniintu sharciga waa u siman yihiin sharci dowladda wuxuu siinaa sharciga awood iyo waajib anigana wuxuu siinaa awood iyo waajib ka muwaadin hadduu sharcigu ii ogol yahay Kismaayo inaan aado Kismaayo meel gaar ah waa Soomaaliya hadduu ii ogol yahay dowladdana waa ogol yahay garoonkaas hadii farmaajo uu ka bixi karo xaq u leeyahay anna waa ka bixi karaa way fahmaanta u malina hadduu sharcigu ii diido asagana waa u diidaa macnaheedu waxaan rabaa inaan fahmo waxa la isku haya waa sharciye 4 sano madaxweynaha kama hadlaynaa dhahana waa ogolna laakiin muxuu sameeynaa madaxweynaha iyo dowladdiisu maxay ka shaqeynayaan waxay ka shaqeynayaan waxa sharcigu ogol yahay hadday ka leexdaan marka maxaa dhici kara waxaa dhici kara dowladnimada inay burburto maxaa yeelay dalkan weli dib u heshiisiin dhaba iyo wax la isku ogyahay adag oo dowladnimada Soomaaliya beys u noqda ma jiraan oo ogtiin sida wax ku soo wadnay waxa lagu soo waday wartanna bal fiiri wartanna fiiri hadday naqato ana lay doortay oo waxaan rabaan sameynaya waxay furaysaa khad aan wanaagsaneyn dowladda marka waxaan rabaa inaa ilaa ka jooga meesha ku socotiin sharciga hareer maraysin ka joogta waxa la idinku ixtiraamayo